aqoon isweydaarsigan ku saabsan cilmiga lahjadaha ee afka Soomaaliga oo ay soo qaban qaabisay hay'adda cilmi baarista afafka iyo bulshada ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baaya. Kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoon-yahano, macallimiin, arday, agaasimayaal, dhalinyaro, ururka ka shaqeeya barista afka Mayga, haween, odayaasha dhaqanka, gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada Baydhabo, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Baaya, wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed iyo marti sharaf kale. Inta uu socday kulankan aqoon isweydaarsiga ayaa waxaa lagu soo bandhigay afafka Mayga, waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin iyo deegaanada looga hadlo. Professor Cabdullaahi Dhaalib, gudoomiyaha xarunta cilmi baarista afafka iyo bulshada, ayaa sharxaad dheer ka bixiyay afafka Mayga, dadka ku hadla iyo deegaanada loogu hadlo. Bulshadii ka soo qayb gashay ayaa su'aalo laga weydiiyay sida lagu horumarin karo afka Mayga iyo dadka looga baahan yahay in ay taageeraan horumarintiisa. Kulanka ayaa waxaa daafuray wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed Mudane Cabdifataax Isaaq Samaale, waxaana uu ka hadlay muhiimadda kulankani iyo sida lagu horumarin karo afka Mayga. Finally, hadda may haysane afkii qoranyi madii hore dadkii aqoon-yahanka hayo ba iska khilaafsanaayeen. Hadda walka guulaysidii may haysane luqadii diyaarsada qoraalshii alifbeetadii iyo taariikhdii qoranta. Walaayo ku dhaman oo horumariyo may baantaale walaaysi sheegay tan talooyinka hadan talka sheegay yalla faday in la suubi dadka suubi lahayna dad irku ku kooyo ma una leey hadii dawladda talooyinkan ku muhiimsan hadan tala ku jeediyay may kumada in dawladda walaaya qoraasa af Mayla kuweela taladaasay ilaahay ina xariisa madii luqadda inta la ka daafuray Professor Jawaari may hay dad kale la taladi oo talada la warsaday luqadan walda afuri madii hore walda afurna hadda walda afuray seen la hormariyo leeyahay seen la ka dhaqan geliyay dhaqan gelintan ma kaliya deegaanada Koonfur Galbeed kaliya ma ay buuha at national level Somali level se la kadeersi agaasimaha guud ee warbaahinta Koonfur Galbeed Mudane Cumar Mustafa Nuura ayaa dhankiisa kaga hadlay waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin afafka iyo lahjadaha loona baahan yahay in wax laga barto. walbadan way la ka wareersiiyaa lahjado iyo afafka marka madii af lagu hadalo kulli bileeridi waxyaabo badan ay isku jaro meel la raayay in lagu barado inay dadkana afyo iyo lahjadoosho iyo eedan baradaan tusaale madana hoosan deegna afka Mayga dadaal badan la gabi juhdi badan la gabi dabcan muddo la ka doowahay laakiin xilliyadan dambe baraarug fayl oo dadka mutacalimiinta ee dhiiga cusubka jara iyo dadaal suubiyaan way la suurageliyay dhawaantun in la qoro farti aayo afka marka hoob marba la qoro si official way boo dabcan afjara qoraal sheyle doo sheyle naxwi sheyle wal kasta oo muhiim ah aflan ku baahanahay leeyahay. Gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada Baydhabo, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Baaya ayaa iyagana sheegay in loo baahan yahay horumarinta afka Mayga. Mayga waa fikir ahaantay inay may la raayso deegaanka Koonfur Galbeed oo dhan af Mayga ka hadle laakiin wali la baahan yahay meel la horumari la fado meel ulaas in la saar la fado may waha gobolada Soomaalida wada deegaanan maskuwada noolnin yamay la faday in la ka hadal afkan ma baahan yahay inay meelo gobolada lagu bilaawo caasimada dalka Soomaaliya inay may buu bulshada anka badan oo may buu dadka luqadda ka hadal yarugan may fadaanahay inay deegaanadaas dadka oo la ka dhax jaray bulshada oo afka maxaati ka hadalaas inay may buu la kala hadal afka Mayga marka hadii una may la raay ku hadalno afka kiigano maayo hadii wal kasta niisheena maay haynin sheena hadii una erna masahayna fahamsiyo masahayna baroy iskoolaadka la ka furo ardayda la bara dadweynaha liin sheeg ganacsatada liin sheeg dukaamleyda walagadaas liin sheeg xitaa dadka oo dawladda dhexe iyo may la raay kornoojar way argaas laantiisa kaha hatta golaha baarlamaanka ku dhilantiisa kaha af maxaatriga buuso oo kasaan hada af may weydiyo walaaga dhanba wali iska hadlaa wadan goradaan inay afka kiiga leedahay dawaada waajibka anay
marka runtii afka eed inay leen hormari ka dhiirgeliyaan unuun meel araay ka dadaalan way liin baahanya inay iskoolaadka la ka dhig